السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا خالقة أنا آدك أجعلهاي إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا إنو جنة الفردوس إنو قوضا كل سيدا مالين والبا يوتيوب كان قوضا كلنو فيسبوك أنا قوضا كلنو إلهي وحن أكبرينا إنو جندي سنة سيدا إنو قوضا كل ددال كيدن على إيمانه إن شاء الله إن هل سبب أما سبب بدن أن يرهدو darteed oo aadan uga niijabaynin xaraysashada DV lotteriga soo socda horta waxaan idinkaga raali gelinayaa muuqaalkan ka horeeyay aan DV lotteriga kaga hadlayay hilmaani hadal kuma jirto meeshii la rabay October inaan dhaho ayaan waxaan dhahay November waan idinkaga raali gelinayaa camaamada iga qaata raali gelintana iga qaata waxaan ula jeeday October 8deedii bishan hadda soo socota bisha 10aad ayaan ula jeeday marka hal iga raali ahado insha Allah marka horta DV lotteriga inaad ka niijabto maba ahaba sababtana maxay tahay DV lotteriga marka xareynaysid lacagkaaga ma baxayso gabi ahaantiisaba waa free laguma dhihin lacag bixi marka lacag ayaa iga khasaaraysa ma dhahaysid waa free number 2 xaraysashada DV lotteriga waqti badan kaaga ma baxayo oo haddii u badato waxaad ku xareyn kartaa wax ka yar 5 daqiiqo ayaad ku xareyn kartaa imise daqiiqo ayaad TikTok daawataa imise daqiiqo ayaad maala yacni u hadashaa imise daqiiqo ayaad meelaha iska socotaa maala yacni 5 daqiiqo oo aad calafkaagii aad ku raadsanayso meesha calafkaaga jiro adiga ma ogid ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa og hase yeeshee adiga 5 daqiiqo oo calafkaagii aad ku raadsato miyaad ka niijabaysaa ha ka niijabin walaashaydii qaaliga ah walaalkaygii qaaliga ha ka niijabin joog ila joog waxbaan kula rabaa ilaahayna waxbuu kula rabaa adigana waxbaad isla rabtaa laakiin dadaalka la imaw ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dhahay iweydiiso anna waan ku ajiibayaa marka haddii aad waxaan xaraysato dadaalkii aad la imaato maalin ilaahay wuu ku ajiibi doonaa wuuna kaa aqbali doonaa marka ha ka niyajibin in aad xaraysato haddaad ka niyajabto xaraysashada waxa weeyaan wax badan ayaa dhacaya laakiin mar walba ku dadaal inaadan ka niyajabin sidoo kale waxaad ka qaadaysaa xaraysashada DV lotteriga waaye aragnimo aad u baaxad leh ayaad ka qaadaysaa sidaas awgeed ha ka niyajabin waayo haddii aadan xaraysanin wax badanna aadan ka ogeyn oo sanad walbana aadan guulaysanin ha isdhihin waan ka niijabay waayo aragnimo ma aha taas ninka ragga ah iyo gabadha kartida leh waxaa loogu talagalay in maalinna ay guulaystaan maalinna ay guuldaraystaan soo guuldarada naftirkeedii ayaa waxay tahay guul sidaas awgeed ha ka baqin inaad guuldaraysato guuldarada ha kuu noqoto waayo aragnimo iyo cashar aad ka baratay guuldarada naftirkeedii si aad u guulaysato insha Allah maxaa kaloo marka ila gudboon waxaa kaloo kula gudbeen inaadan weliga been ka sheegin arrimaha DV lotteriga guud ahaanba number 1 dad islaama ayaan nahay sheegista beenta xaraam ayay naga tahay marka sidaas awgeed waxa xaraam ah beenta inaad sheegto meel walbana beenta lagama ogolo ilaahay subxaanahu wa tacaala ma ogolo diinteeni lagama ogolo qof been ogol ma jirto sidaas awgeed been ha ka sheegin xaraysashada DV lotteriga haddii kale aday dib kuugu soo noqonaysaa number 1 been ha ka sheegin da'daadii da'aadan jirin ha sheegin inta hadda hawshan aan ku guda jiray waxaa igu soo laalaabtay dad badan oo been ka sheegay da'doodii hadhowna markii la gaaray xilligii da'dii ay ku xaraysteen garan waayey marka haddii aad ka been sheegto da'daadii waxa weeyaan hadhow aday dib kuugu soo laabanaysaa waxaad garan weynaysaa da'dii aad qoratay sidaas awgeed ha is yaraynin hana is weynaynin da'da ilaahay subxaanahu wa tacaala ku siiyey ee aad gaartay ilaahay nimco kugu gaarsiiyey la soco taasna iska sheego saadan u iloobin sidoo kale number 2 been ha ka sheegin waxbarashadaadii dad badan ayaa waxa ku dhacday South Africa joogo oo South Africa tagay interview u tagay maaragtay Kenya interview u tagay maxaa ku dhacay dadkaasi waxa ku dhacay waxay tahay been ayay ka sheegeen waxbarashadoodii waxaana ku dhacay marka la dhahay high schoolkii aad soo qoratay warqadii keen
waxay bilaabeen inay afka taagaan waayo high schoolkii informationkiisa ma hayaan sidaas awgeed been ha ka sheegin haddii aad high school ahayn high school ahay hadhihinsaad wax u hesho waayo hadhow aday dib kuugu soo laabanaysaa 2 haddii aadan haysanin jaamacad hadhihin jaamacadaan haystaa waayo la soco hadhow aday kugu soo noqon doontaa midda saddexaad waxay tahay been ha ka sheegin backgroundkaagii guud ahaantiisa haddaad been ka sheegto dhibaatooyin xoog leh ayaad kala kulmaysaa marka sidaas awgeed iska ilaali in qofkaad tahay been aad ka sheegto waxa ugu yar ayaa ku tusaaya tusaale ahaan haddii aad been ka sheegto magaalada aad ku dhalatay tusaale ahaan magaalada aad ku dhalatay ayaad been ka sheegtay waxaad tiri magaalo hebel ayaan ku dhashay laakiin kuma aadan dhalan taasi waxay kuu keenaysaa hadhow in waqtiga interviewga aad ilowdo aad soo xasuusan weydo oo aad runta sheegto magaaladii saxda aheed aad sheegto halka wixii kuu qornaana aysan waxaasi ahayn marka beenta aad ka sheegaysa backgroundkaaga iska ilaali haddii aad ku dhalatay tuuladaada sheego haddii aad xamar ku dhalatay xamartaada sheego haddaad hargeysa ku dhalatay hargeysadaada sheego haddaad garoobe ku dhalatay garoobadaada sheego baydhabo kismaayo jawhar meeshaad ku dhalatay oo dhulkii soomaaliyeed ah sheego ha ka baqin backgroundkaagii been ha ka sheegin si saxa u sheego okay wax kasto adiga kugu saabsan inaad sheegato ayaa muhiima sidoo kale haddii aad xaas leedahay xaaskaaga sheego haddii aadan lahaynna sheeg inaadan lahayn haddaad caruur leedahay sheego haddii aadan lahaynna sheeg inaadan caruur lahayn marka intaasi oo dhan waxaa weeyaan haddii been aad ka sheegto backgroundkaagii aduu kugu soo noqonayaa haddii waxbarashadaadii aad been ka sheegto aday kugu soo noqonaysaa haddii da'daadii aad been ka sheegto aday kugu soo noqonaysaa gmail khaldan haddaad ku xaraysato aday kugu soo noqonaysaa marka iska ilaali hana ka niyad jabin xaraysashada dv loteriga waqti kaaga ma baxayo iska nasiibso waa nasiib maalinta ilaahay kuu soo sahlan alxamdulilah dheh maalinta ilaahay uusan kuu soo sahlinna alxamdulilah dheh aad baad ugu mahadsan tahay muuqaalkana saxaabtaadii la sii shargaree haddii aad igu cusub tahayna follow subscribe isoo dheh youtube iyo facebook si informationo ka badan halkanana saxaabtaydii khayr ka badan aan kula wadaago adigana aad uga mid noqoto sidoo kalena aan fikradaha iyo waxyaabaha aan isdhaanno halkaan aan iskula wadaagno intaan dib dambe u kulmi doono wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh jannada ayaa inoo balana insha allah